oo ka shaqaynaysa inaan hooyo iyo cunug Soomaaliyeed ama hooyo iyo cunug adduunweynaha ka tirsan aysan dhibaatoonin gabadha u taagan ilaa iyo haddeertaan hiddaheedii wadata Khadiijo marka qoyskaas runtii aan ku tilmaami karo inay yihiin hero ama geesiyaal ayay ka soo jeedaa waana tan keentay inay noqoto wasiir aan dhicin inta ay nooshahay ilaahay idankii annagana waxaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed oo mudane wasiir ku garab taagan diyaar u ah inay kula shaqeeyaan kula hinjiyaan howlaha iyo mas'uuliyadda weyn oo dalka iyo dadka u hayso waxaan rajaynayaa shirkan maanta aad nagu soo sharaftay adigoo shaqooyin fara badan leh oo dhawaan xilka la wareegay ka yimiday howlo qaran inaad haddana noo timaado miisaanka iyo culayska aadna saartay iyo qadarinta aadna siisay waa kaaga mahad celinaynaa shirkaanna waa shir haweenka Soomaaliyeed ay ku lafagurayaan doorka ay kaga jiraan nabadaynta amniga iyo la dagaalanka fikradaha guracan ee xagjirnimada waayo hooyadu waa tiirka qoyska waa udub dhaxaadka bulshada waa maskaxda iyo macalinka tababaraha runta ah ee mujtamaca Soomaaliyeed waa hooyada Soomaaliyeed waxa ku dhacay hammi qam iyo dhibaato fara badan oo gaarsiisay inay awoodi kari weydo wax ka baxsan inay u halganto caruurtu maxay cuni doontaa maanta maxay ku qadayn doonaan maxay ku quraacan doonaan iskuul ma ku heli doonaan dugsi ma geysan karaysaa abni haddaad kaga baxdo aad kula soo noqoto ma heli doontaa waxaan aad iyo aad ugu taaganahay haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed dhibaato kasta iyo duruuf kasta oo aan ku noolnahay inaan garab istaagno dawladdeena inaan taageerno dawladdeena inaan korino dawladdeena inaan ka difaacno cadawga dawladdeena oo habeen iyo maalin aan shaqayno oo aanan seexanin waxaan rajaynayaa hoggaankaaga suuban halgankaaga iyo niyadsamadaada wanaagsan dadaalkaaga iyo kartidaada iyo aqoontaada iyo caqligaaga in maanta ummadda Soomaaliyeed marka la eego bar iyo ka badan waa haween hadday istaagaan oo ay kula shaqeeyaan oo ay dawladnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed u kacaan cadow meel uu ku gabado oo dambe oo Soomaaliya lama heli doono sida ay sheegtay agaasimaha dib u heshiisiinta iyo amniga ururka haweenka qaranka walaashay Abshiro Axmed Maalin waa naga daacad ciidamada ayaan garab istaagnaa oo weli garab taaganahay dawladnimada ayaa noo ah caruurta aan dhalnay oo kale oo aan saxarka ka ilaalinaa waxaan u taaganahay dalkan sidoo adduunyada uga mid noqon lahaa oo nabad loogu noolaan lahaa gabdhuhu marka maanta intaas oo cudud ah mudane wasiir waxay u taagan tahay in ay la faguraan talooyin ka bixiyaan maskaxdooda tuujiyaan inaan xamar dhibaato dambe oo wiil nooga dhinto ama gabar nooga dhimato kuwa hadda ugu dambeeyay Abshir ay ka hadlaysay oo urku taalada leh oo iyagoo saqiir ah dhibaato la soo gaarsiiyay iyagoo graduation ka sameeyay dugsiga sare gabadhii shalay lagu dilay ceelasha biyaha waxay nagu reebaysaa cawaaqib xumada caruurta aan u taaganahay banaanka ee aan shaaha u karinayno ee aan dhexda u xiranay ee aan kaga bixinaynay wixii Allah waxa soo helnay inay wax bartaan in markay soo graduate garaysay oo guuleysatay oo soo xirtay sanadusiyadkii dugsiga sare lagu dilo midi halowda loo geliyo waxay nagu abuuraysaa haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed uurku taalo sii kordhisa tii hore loo haysatay ee caruurteena ku dhacaysay ee walaalaha ku dhacaysay ee ragana ku dhacaysay ee dabkana lagu shiday ee aan banaanka u naalo waxaan u baahanahay marka haddaan anagu kacno oo anagu istaagno waxaan badbaadin karnaa biidnillah ilaahayna waa nala jirayaa qarankan oo dhan ayaan badbaadin karnaa habeen iyo maalin gabdhaha Soomaaliyeed mudane wasiir waxaan u baahanahay xiriirka dawladda waxaan u baahanahay sirta cadawga meelan geyno waxaan u baahanahay in xoogga haweenka ay looga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed oo la siiyo doorka ay ku leeyihiin dalka hadday noqon lahayd dhinaca amniga hadday noqon lahayd dhinaca arrimaha bulshada iyo hadday noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha waxaan aragnaa dal mudane wasiir wada rag ah
meel kasta go'aanka iyo talada raggaa haysta meel kastana rag baa baabi'inaya oo dalka iyo dhibaatada iyo mushaakilka u horseedaya ummadeenna caruurteenna iyo horumarkeenna iyo farxaddeenna ka soo horjeeda waxaan rajaynaynaa in wasiir aad arrintaas hoosta ka xariiqdo gabdhaha aad howlgeliso gabdhaha aad fursadaha siiso gabdhahana dharkayso weligood mushaar ma qaadan maalin ay shaqo ka maqnaadaanna ma jirto maalin walba ciidankay barbar socdaan maalin walba waxay ka shaqaynayaan nadaafadda oo waxay xaaqayaan wasaqda iyo qurunka caafimaad darrada mujtamaca u keenaysa maalin walba waa gaarhaye ka digtoon in galdaloolo laga helo qaranka Soomaaliyeed maalin walba waxay taageerayaan oo garab taagan yihiin dawladnimada oo ay u korinayaan sida ilmihii ay dhaleen oo kale maantana meesha ay Soomaaliya soo gaartay waxa soo gaarsiiyay gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed la'aantoodna ma dhacdeen inay Soomaaliya maanta heerkan ay soo jibaacdo ama ay soo jarto maylalka badan ee ay soo martay waxaan ognahay ilaa iyo hadda ciriiriga nolosha dhibaatada dayaca wuxuu dul saaran yahay hooyooyinka Soomaaliyeed umana qalmaan inay ku noolaadaan nolosha noocaasa oo aan bini aadanka u qalmin waxaan rajaynaynaa adigoo waaya araga adigoo hooyo ah adigoo wasiirad ah adigoo xildhibaanad ah adigoo aan ku rajaynayno inta noloshaada kaaga hartay inaad saa u taagnaato oo aad horseed u noqoto gabdhaha Soomaaliyeed haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxaan qabnaa in aan arrintan ayna noqonin mid lagu kala tago waad naga tegaysaa waxaad rabtaa inaad howlo kale oo qaran oo muhiim ah oo mawcidkeeda aad lahayd aad gasho laakiin anagu ma kala tegayno markaan soo dhamaynana waxaan kula wadaagi doonaa warbixinta iyo talada gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in wax weyn ay iska bedesho Soomaaliya sida ay tahay maanta waayo madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka xukuumadda oo dhan waxa maanta loo jihaystay in la aslaaxiyo Soomaaliya oo nabad ah Soomaaliya oo heshiis ah Soomaaliya oo dunida heshiis la ah arrimahaasi annaga farxad bayna gelinaysaa laakiin doorka aan ku leenahay inuu cad yahay inaan ka qayb galno taladeeda iyo hoggaankeeda iyo waxqabadkeeda adiga ayaa wakiil nooga ah waxaan rajaynaynaa insha Allah taala horumar la taaban karo iyo itijaah la taaban karo iyo hoggaan la taaban karo iyo qorshe howleed la taaban karo inay gabdhaha Soomaaliyeed ku howlgalaan hoggaankaaga dartii way aragnimadaada dartood iyo jacaylka aad u qabto gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed darteed waxaan kugu soo dhaweynayaa mikrofoonka marwo qadiijo maxamed biiriye xaashi wasiiradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka